موسى عدي لكم دينكم أذيك يوحى كل دينه أذيك يا محمود كي قبل هذا حج جوجي قبري وحن صور ري كعبدي بان كصور ري إن مكة كصور ري وحن كان دوسم الرب يري أصلا صاحب ديبة يكون كلا قاركود هرجيسنا جوجي جوجي يقرأ وانا جوجي أما كسماي حمر نلا جوجي إلى إن الله شريك يلا مناقب دين كدكتي أنا قارن لكم دينكم ولا ديننا لكم دينكم ولي دين وحيره يا ماحي الذنوب السلام عليك مولودكم مركز الأغراض أي وحيره شركيات سمايسين معادله وحيره إلى هادين بقدافين من محمد هادين بقدافين وقلدتين وسوفياتين ووالدتين إلهي رسول كيس وحول لي يا مقعيس أنا الماحي وأنا الماحي يمحو الله بي الشركة أنا قد بترى اللي يراه ماحي ترى بالليلة يمحو الله وإلهي وترى بي سبب تيدو الشركة قال لي مكوس مدين بقال لي مكوين ولا ترى أجر marka fikirkii buusiri oo hadana xalaad sii raacay oo ku sii raacay kii kale mushriga la oran jiray muhidiin al-andalusi ama ibn arabi ayuu wadaa ninkaas hadda aan idinkaga digayo oo la yiraahdo Muuse Cade waa ahlu shirki dadka u fatwooday isagoo kale baa ummadana rogay bismillaah walhamdulillah thumma salatu wa salamu ala rasulillah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى وحربا كلمات كوبان أن نقول جوابنا قبوري أما مشركين الصومالية كمذا ودقان ودن كسويدن المقعي سنة اللي يرهدو موسى عدى يقول الشيخ موسى عدى أيو يغانن نقاسو أن داوانا أرقني كلمات وصوت ومر دغانيين موليدka asaga iyo saaxiibadiiba kalimaadkaas oo inta badan been abuur nabiga iyo aayaadka Ilaahay lagu been abuuranayo dadkana diin looga dhigayo marka insha Allah taala ninkii caaqila ama diin raba ama Ilaahay wajigiisa ku xisaabtamaya runtaan u sheegaynaa faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur waxaan ku hormaraya horta mawliidku sidiisaba asal xagee ku leeyahay مولدك هو حويه ان dabaaldega loo dabaaldego dhalashada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyagoo ka dhiganaya maxabba ay nabiga jecelnahay ay leeyihiin laakiin si xageeba ka soo bilaabatay jacaylka nabiga sama lagu cadeyn karaa bidic nabiga uu soo goleen salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi marka koowaad horta nabi maxamed ma amrin mawlid وهذا خير تاع النبي أمر لها صلى الله عليه وسلم يسوون سمين لها حفلة مولد كأ دلشة النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن الله بعد النبي صحابة يصير خاصة خلفاء الراشدين صدق صناعي مامولي المسلمين تا وح مولد اللي هذا لما أقول وحكذا بالدولة أموية وإلى بقول صدق إلى بدي مامولي مسلمين تا بقول صدق إلى بدي هجرة أي دولة دا صدق لما أقول وحلا يراهدو مولد صحابته ما أنا أقول تابعينته ما أنا أقول تابعينته ما أنا أقول قرون المفضلة سكوا الله يغان سدح قرني النبي أماني مولد وحلا يراهدو لما أقول وقرون النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم يعني قرني هذا وحا أخير بدن قرني أنو أنشوغي عليه الصلاة والسلام كدبنا كوا كلا كوحية كدبنا قرني كلا كوسيحية صدح ذا قرني مولد لما أقول سؤال شمرك عاقل كلا ويديني يا وحي هذه خير أتاي النبي أي أمر لها أما صحابة سي أو فهم كي سليم كأوتي جيل كي وجوه الرئي ومدن ورا فضل أبدنا أي سمين لها محايا أبو بكر النبي كجعل مجري عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي من نما سمين منا أنا أقول يا بلابي مركه waxaan xageebu ka yimid waxa bilaabay nin la oran jiray Yaqoob ibn Kils oo shiicada la oran jiray Faatimiinta qabsatay Masar qarnigii afraad 378 taariikhda hijrada markay mareysay ayuu ku aasaasay meesha hadda loo yaqaan Al-Azhar oo markii hore masaajid laga dhisay la oran jiray Jaami'ul Al-Azhar ama Jaami'u Zahra oo lagu magac daray Faadima Zahra iyaga maadaama shiica Faatimiyiin ay yihiin oo baatiniye ah
culimadii waqtigaa joogay ee ka dhiidhiyey waxaa ka mid ahaa sheekh la oran jiray annablisi iyaga isagiina way dileen si xun bay u dileen weliba haraggay ka diireen oo ay ka fiiqeen isaga oo nool halkaasoo ka soo bilaabatay mawliid shiica soo bilowday horta waa sunno shiica sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma aha ninkii bilaabana waa yacquub ibnu kils dabeedna waxay sii fakatay xoog yeelatay markii dowladdii cabaasiyiinteeda ay burburtay qarnigii 6 iyo kii 7 ee hijrada ee tartaarku ay qabsadeen magaaladii baqdaad iyo magaalooyinka waaweynaa ee barigii khawaarzim ilaa iyo shaam ilaa masar ay ku soo dhowaadeen markii halkaasuu ka soo bilowday mawliid sidiibu u fakaday u xoogaystay asalkuma la diinta islaamka waa bidic kadib asagoo bidcaha haddana waxaa la bilaabay waxyaabo shirkiga in lagu dhex sameeyo oo waxaa ka mid waxyaabaha shirkiga kitaabka la akhriyo burdaha waxaa ku yaal in nabiga la magan galayo calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid erayada ku yaala oo ninkan hadda uu ka warwareeganayo inuu sheegana uusan doonayn qaarna uu sheegay burdaha ku yaala oo uu si kale u fasiran dadka u cadayn doono mid waxa weeye bilowga kitaabkaas burdaha ay qabuuriyiintu akhristaan yani ya akram al-khalqi ma li la ajidu man aludu siwaka inda huduthi hadithati al-amimi ya akram al-khalqi wa nabiga alayhi salatu wasalam ma li maxaa igu dhacay la ajidu heli maayo man aludu siwaka midaan magan galon adiga ahayn waliba goorma inda huduthi hadithati al-amimi حادثة وين مركي دعدو أو خطرت يقيامه دعان أديك بان كو مغان غلابو ليه النبي عليه الصلاة والسلام أرنتاسنا والشرك الأكبر محاير النبي وأدون إساقا الله أمري إنو إلهي مغان غلو ألا النبي وحو كيري قل أعوذ برب الفلق وحاتر هذا نبي الله وحان مغان غلي يا رب الفلق الله سبحانه وتعالى ربك وحدن بلا أما وابرك دنبلا يقول أعوذ برب الناس ربي وحان مغان غليا ده ربي ددكان مغان غليا اذا مغان غلku waa cibaado ilaahay leeyahay ee isaga khaas u ah ee ma aha nabiga midka la magan galiyo sallallahu alayhi wasallam nabiguna arrinka uu ka digayba salawaatullaahi wa salaamu alayhi qofkii cid magan galayay yaani allu magan galaya qofkii cid u yeeranayana allu u yeeranaya nabigu wuxuu ka digay in isaga amaanta laga badiyo la gaarsiyo ilaa heerkii nabiyullaahi ciisa ay nasaarada ama kristanku gaarsiiyeen wuxuu yiri xadiidka sahih al-bukhari ku yaalay la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu yaani amaanta hayga badinina sida nasaaradu ay amaanta iyo bumbuuninta uga badiyeen nabiyullaahi ciisa anigu waxaan ahay yiri adoon waxa ay tiraahdaan adoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa nabigu wuxuu iska ilaalinayay in loo yeerto sida hadda ay ugu yeertaan dadka hadda aan sheeganay qabuuriinta ama suufiyada ay yiraahdaan ya rasuulullaahi madad يا حبيب الله مدد يا خير خلق الله مدد رسولك يرنا مدد وكردي وسو غرمو صلى الله عليه وسلم نبينا وادون اله ما اهن صلوات الله وسلامه عليه نبيga waxa laga qaadanaya wadadii ilaahay lagu caabudayay jaceelka nabigana lagu ma muujin karo nabiga in la caabudo shirki weeytaas ninka nabiga jecel uu raacaya sida Allah ba amray qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wuxuu kaloo ninkaas soo adeegsaday markaan horta mawliidkii ka soo dadka wada fahamsino min mawliidku asal bawsan ku laan diinta islaamka waxa ku soo xiga in uu yiri xadiis budalisada mawduuca been abuura la asla laha fi kutub yani meel kitaab ku yaala male wana xadiis ay ku dabeel raxawsadaan dadka masaakiinta ee juhalada oo ayagu ay sameysteen mawduuc waxa la yiraahdaa darajada ugu liidata ahadiis dhaifka waa been abuur waa fabrication nabi maxamed lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas wuxuu leeyahay tawassalu bijahi fa inna jahi inda allahi azim wajigayga ku tawassula ayaa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wajigaygu ilaahay xaqiisa uu ku weeyahay naam wajiga ilaahay wajiga rasuulku allah xaqiisa uu ku weeyahay laakiin nabigu ugu tawassula ma dhihin aniga ay bariyo igu tawassulana ma dhihin sallallahu alayhi wasallam waa been abuur weey meel ay ku taala ma laakiin shayaatiinta ayaa mushrikiinta u tabiyay si ay dadka ugu been abuurtaan ninkaasana si khalad umad badan oo juhala iskaga dhigaya nin diin u sheegaya ha sheega kitaabka uu ku yaal iyo saxada xadiidka wax jira maaha mawduuc weey waa been abuur nabiga lagu been abuurtay qofkii caaqil ah nabiga alayhi salaatu wasalaam isaga ilaahay toos u bari jiray
muslimiintana wuxuu baray oo yiri idaa sa'alta fas'alillah wa idaa ista'anta fasta'in billah haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay weydiiso haddaad cid kaalmo weydiisanaysana ilaahay kaalmayso saasuna baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ninkani bedelay micnihii wasiiladii quraanka alla ku sheegay liqowlihi ta'ala fi suurati al-maa'ida yaa ayuha alladhiina aamanuu ittaqullaha wabtaghuu ilayhi al-wasiila dadka mu'miniinta oo alla ka baqa oo dalba wasiilad alla ugu dhawaataan wuxuu asagu ka dhigayaa wasiilada in laga wado dad awliye ah oo ilaahay u dhow raadiyood alla ugu dhawaataan waana kidib iyo been abuur quraankii lagu sameeyo waana kufri iyo ulakac hal mufassir oo mufassiriinta muslimiinta ah laga soo bilaabo saxaabadii ilaa iyo kuwii ugu dambeeyay qarniga 7 ama 8 noolaa hal mufassir oo ku fasiray awliye Allah loogu dhawaado hal keeno bal waxaan haynaa qataada oo dad garanaysaan oo taabiciya oo mufassira iyo ibn kathir kitaabkiisa tafsiirka inuu ku soo qaatay oo leeyahay yani ilaahay baa wuxuu amrayaa taqarrabu ila Allah bil amal salih ilaahay ugu dhawaada amal salih iyo wax ilaahay raali geliya dhawaanshaha ilaahay uu dalbayo adoomada Allah waxa ugu dhawaataan dalba uu leeyahay makhluuq dhintay raadiyo ku tawassul ma ahan waxa weeye amal wanaagsan sameeyo ilaahay raali ka yahay salaadi badiya yani salaatu nawaafilatu kada salaatu leeltu kada masaakiinta quudiya waxyaabo khayra sameeyo ilaahay raali ka yahay amal ilaahay raali geliya ama ilaahay asmaadiisa xusnaa ku tuuga liqowlihi ta'ala walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay ku tuuga oo ku bariya idan kadaabku waa ka been sheegay aayadii ilaahay wuxuuna ka dhigay in alla uu ka wado dadka saalixiinta ah igu soo dhawaada yaani shirkigiibu u daliilsanaya quraanka iyo aayad kale iyadana ilaahay uu kaga hadlayo subhanahu wa ta'ala dadka makhluuqa u yeerta inay hungoobeen alla wuxuu leeyahay subhanahu wa yaani asoo ka waramaya قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا ويرد waxa ay sheeganayaan alla sokadiina wax u tari karaan kama faydi karaan ba alla yiri dib dul saaran mid soo socdana kama leexin karaan ulaa'ika alladina yad'una kuwaas waa kuwa baryaya makhluuq bay baryayaan yabtaguna ila rabbihim alwasila iyagoo doonayna ilaahay ugu dhawaadaan waa ku khaldan yihiin inay makhluuq u yeertaan ayuhum aqrabu ka alla u dhow ma midka ilaahay toos u tuugay midka ilaahay makhluuq u maray ويرجون رحمته ورحمته سنة رجينية ويخافون عذابه عذابك سنة كبغية إن عذاب ربك كان محذورا عذابك ربك وحو هذا النبي مثل اسكا إلاليه ذاتك الصالحين تبري يبا إلهي الديدية مركزو يستقى بالعكس سدك لكدك أو وحو يري كوين كودو الله أقودو هذا كوين أقو صالح سنة إذن كوكو خير بدن إلهي أقودو هذا الله كوذا بيري وانا كذب كلا عيد كفسرتين ما جرتو بل shirkigiisii uu raba inuu quraanka uga keeno daliil ilaahay isagoo amray adoomadiisa markuu ka hadlayay yeerista loo yeeranay makhluuq wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala asagoo nabigiisa la hadlayay khaasatan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin nabi oo u yeeranin ilaahay sokadii midaan waxba ku tari karin waxna aan ku dhibi karin hadii aad sidaa yeesho adiga dhaalimiinta ka mid noqonaya ilaahay nabigiisa u goodinaya kaleey salaatu wasalaam nabigu waa macsuum ilaahay baa ilaalinaya oo shirki ka ilaalinaya inuu makhluuq u yeerto laakiin waxayna baraysaa aayadu oo ilaahay nagu baraya hadii nabigu ilaahay geerkii u yeerto dhaalimiinta ka mid noqon lahaa annaga ka waran marka wuxuu rabaa dadka inuu uga dhigo inay u yeertaan awliyada oo ku tawassulaan awliyada oo jiilaani iyo waas iyo sheekh nuur u yeertaan oo barkhadle iyo barkaan u yeertaan oo muxiidiin cali u yeertaan oo ugaasdiin iyo maxamed daawud iyo xaaji makaahil iyo daarood ismaaciil u yeertaan oo barkhadle iyo sheekh isxaaq u yeertaan waana kufri iyo shirki dadka diin uga dhigay waa khaain ummadii khalday ilaahay baan xisaabinay haduusan ilaahay u toobad keenin ninka ahlu shirkiga jaahil ma ahan wuu ku talagalay inuu ummadda lumiyo si baadilkiisii uu ugu macaaneeyo wasiilada sharciga ilaahay amray subhanahu wa ta'ala alla loogu dhawaado waa amal saalixa oo ilaahay loogu dhawaado ama makhluuq nool oo tiraahdo noo ducee sidii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu uu yiri aamu ramada sanadkii abaarta baan ay dhacday oo u yeeray nabiga adeerkiisa Abbas ibn Abdul Muttalib wuxuu yiri yaan ilaahay buu bariyay Umar Allahumma kunna natawassalu
بنبيك أي بدعاء نبيك نبيك دعاء سانو كنت وصول جرنا مركو نولا نبيك نو دعاء جري نبيك وارد انت صلى الله عليه وسلم واليوم أو الآن نتوصل بعم نبيك أي بدعاء عم نبيك نبيك أدركيس دعاء سانو كنت وصولنا مركز يا عباس قم وادعو استاق ودعاء هذه نبيك أو انت إن الله يرتأي بنانتهاي عباس النبي اسكو فضل ما اسكو من دواء meesha lagu hadlay masaajidka nabiga ana wuxuu kaga aasan yahay 20 mitir meel abu ku aasan yahay guriga Aisha sallallahu alayhi wasallam muxuu loo oran waayay rasuulka Allah Ilaahay noo bari marka loo yeerayo qof kale sida nabiga yaani adeerkii Abbas ibn Abdul Muttalib oo lagu karaameeyay maadaama nabiga adeerkii uu ahaa halkaas waxay cadeynaysaa qofkii caaqil oo xadiidka Sahih Bukhari ku yaala qisadaas oo Umar leeyahay rasuulka Allah noo ducayn jiray laakiin mar haduu dhintay wuxuu ka wadaa adeerkiisa noo ducaynay Ilaahu noo aqbal Abbas baa duceeyay raabkiina Allah waa keenay laga bariyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii nabiga geeridiisa kadib loo yeeran karo sida uu sheegay ninkii Muuse cadaha ee dadka lumiyay ummad badan hoojiyay Abbas looma baahdeen Umar yani cid kale noo duceey lama yiraahdeen ee rasuulka Allah Ilaahay noo bari baa la dhihi lahaa saxaabaduna iyagaana baray sida Ilaahay loo caabudayo marka nabiga maadaama ay ahaayeen ardadii nabiga iyaga dadka ugu badiya sida Allah loo caabudayo salawaatullaahi wa salaamu alayhi nabigaana tarbiyay iyaga halka waxay cadeynaysaa marka wasiilada sharciga ah in qof ii ducee la yiraahdo nool in يعني عمل صالح الله تماد أدو كده شو إلهي بريدو يناد مقعيدة إلهي الله كتوكتو سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي بأورنية الله مقعيه ونأسنب الله كبرية إذن شركي جيبا ليدين معاني الدين ليدين كغدقي هورينا أمد بدن لوغو سولومية جيسك أفريكا كنول أو لو غدقي إن قبر لوغو طوافو أو عيد لغا قاتو أو لو يرتو أو لو حول لو قورعو إني دينتي نبي محمد تاي مناهن ودين شركي وباطلة قرآن كيبا نكر ديننا أحاديث النبي نكر ديننا انت مركا تاوغا سو غدبو oo ninka aan ugu jawaabayo Muuse Cade iyo mid kale uu soo gudbaya oo yiri nabiga aba shirkiga cafin jiray hadal sida u eg maxay yeelay waxaan ku qabsanay warka mawlidka ugu yaala kitaabka burdaha ya maaxi dhunubi ay oranayaan nabiga kii dhunubta tirtirayo markaas wuxuu soo qaatay xadiid kale oo uu nabigu yiri in kaana xadiidu saxiixan nabigu yiri alayhi salatu wasalaam yani ana al-maahi yamhu Allah al-biyad ash-shirk aw kama qala alayhi salatu wasalaam yani ana akii tirtiraya ilaahay ba shirkiga aniga igu tirtiraya micnaheedu waxa weeye xadiidku baad u saxiix yahay aniga shirkiga Allah igu tirtiraa shirkiga la dagaalamaya ee micnaheedu maaha ana shirkiga cafiya إلهي بابا سبحانه وتعالى يري شرك معفيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني إلهي معفيه الله شرك له هو نعفيه وحي شرك كير قفك ودونه ألا يري ما بعفيه نبينا كما وضع أنا عفيه وحو كوضع إلهي بشرك يقدر وساء ولدك على من أبربريه isagu habka uu tirtiray wuxuu yiri habka uu sheegay waa si laga fahmi karo oo khidaaca umada uu ku sirayo shirki baad sameeyeen dhaheen suufiyaalow maxaa shirki nabigu maaxi ana maaxi kii tirtirayaan ahay oo ilaahay shirkiga igu tirtira shirki dambi ka weyn ma jiro shirki uu tirtiraa uu ka wada يعني إسلام بو كو كياني إسلام كيبا شركي لغو بربوريا قدال بو هذا الكيسة كقدري لكن غيبته هره وحكا ديغي إنو شركي نبي ترتري عليه الصلاة والسلام نبي قلنا شركينا ما ترترو الدنبي ويا دنبي يرمينا ما ترترو صلى الله عليه وسلم مركا وحان إذا كعو سنيا برهورتو إناد إيكتان سيدا أو أهد ليو إن ننكاسو مركو كهد ليو إن دنبي أن ترتري أوليهي ماحي ذنوبي وكهد ليو إن ترترست شركك النبي عليه الصلاة والسلام يا ماحي الذنوب السلام عليك مولودك مركي الأغرايب أي وحيرين شركيات ترين شركيات سمايسين ما عاد لو وحيرين إلى هادين بقى دافين من محمد هادين بقى دافين وقلبتين وسوفياتين ووالتين إلهي رسول كيس وحول لي يا مقعيسة أنا الماحي وأنا الماحي يمحو الله بي الشركة
aniga dembi tiraa la yidhaaho maaxi tiraaba la yidhaah yamxullaahu waa ilaahay waa tiraa biya sababtayda ashirka gaalnimo ma dembi gaalnimo ka weyn oo la tiraa ajir islaamnimada tirtiraysa islaamnimada ma adiga iska maagta rasuulka keenay ana almaaxi yamxullaahu biya shirk waxaan kaloo ayadana codsanayaa inaad daawataan xadiidkii uu ku been abuurtay nabiga sallallahu alayhi wasallam ee xadiidkaas uu mawduuc ahaa tawasalu bijaahi fa inna jaahi inda Allahi aziim waxaan kaloo ayadana rabaa inaad fiirsataan insha Allah ta'ala sida uu wasiilada aayadii wasiilada kitaabka ibn kathiirka soo qaada ama ibn jariir at-tabari soo qaada tafsiirka ama tafsiirka iyo tafaasiirta ka dhan soo qaada hal meel oo ku fasiraya awliyo iyo saalixiin ilaahay loogu dhawaado hal la keeno mushrikaas ummadii waa ku cayaaray marka dadkaas meesha jooga iyo kuwa kale daawanaya waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena ee uga dhigayo diin uga dhigayo jacaylkii nabiga uga dhigayo in nabiga la khilaafo sallallahu alayhi wasallam dadkiina shirki loo macaaneeyo wuxuu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi tawassaluu bijaahi fa inna jaahi inda Allahi aziim jaahayga ku tawassula jaahaygu alla agtiisa waa ku weyn وكان عند الله وجيها نبيالك إلهي مركو كشيك إلهي وحور وحو هذا وجه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيل توصل كي استغاثة الشرك إنيه عملية المامية وأنا بين نصوص تحت على خلاف كلمة داسو إلهي بحول يا أيها الذين آمنوا على أنت الرسول كعب ستو ورميسنو اتقوا الله على كعب ستو وابتغوا إليه الوسيلة قف بقفك وكفل بنيها كوسيلة ضلبة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب نك على أبو دواشة بدنا لغو توصلها يا مركز سدو نبنك أو كأودويها الله لغو توصلها أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلهي رحمتي سنوات رجينا المؤمنين ninkooda ugu aqrabsana Allah inoo bari leeyino ku istigaatoonayaan markay saa ku leeyihiin sawti Abbas yiri maaha nabigu marka uu dhintay Abbas bin Abdul Muttalib Umar bin Khattab u yimid markaas uu rabbigeyn rasuulkayna haduu jooga rabbi inoo bari asaanku aan ku tawasul jirnay ada aalu beedkii ilaahay bari Abbas ilaahu bari roobkina waada ya ikhwata adillada ya ahkaamta hadii la khilaafo هاي مانع مكة بعد لا إيمانه نبي محمد الله صادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الراعب أنا الله صادري إن العابد الله ما صادرين إلهي وحير ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إلهي إذن ما أمريو والنبي إذن ما أمريو أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إن أتكدقتان ملائكتي أنبياء ديبا ربيو العابدين أتكدقتان أي أمركم بالكفر إلهي ما قال لهم إذن أمريا بعد إذا أنتم مسلمون مركز الله وهو كان سنتين كذب إذن إلهي ما قال عيدك لإن لصيع عباده بريو ما قال أطيعد وهو كان سميد أطيعدي أهيتي عبودية إلهي كلي أسكله نبي أطيعد يسوع وأدعى النبي نمذا أو حلقوا أدعى الله جبارنا يلا قاضنا يا سي الله لو عابد لها لكن نبي قال ما عابده isagaana diiday calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan uga digay shirki sallallahu alayhi wasallam qofkii wajiga ilaahay ku xisaabtamayo zaalimiinta noocaas oo kale culimada iska dhigaya ee dadka qiyaam adduun iyo aakhiraba seejiyay iyagoo isaga dhigay nabiga inay jecel yihiin kana faa'iideysanaya jahliga dadka haysta waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena naar buu idin wadaa ninka shirkeeda kugu yeeray ninka nabiga inaad u yeerataan oo ku tawassushaan oo baridaan idin kugu yeeray inaad nabiga caabudaan buu idin kugu yeeray nabiguna isaga oranaya qudhiisa sallallahu alayhi wasallam idaa sa'alta fas'alillah haddaad cid wax weydiisanayso alla weydiiso idaa sa'alta fas'alni aniga weydiiso ma dhihin anigana alla ii mar ma dhihin nabiga calayhi salaatu wasalaam bal qur'aan buu nabigu wuxuu ku yiri yani wa idaa sa'alaka cibaadi anni fa inni qariibun ujiibu da'wata daa'i idaa da'ani falyastajiibu li walyu'minu bi la'allahum yarshuduun haddii addoommadaydu kaa weydiiyaan nebiyow waan dhowahay anigu waana ajiibaaba alla yidhi midka i baryaya baryadiisa ha i baryaanba alla yidhi cid loo maro alla ka sokayso la maro malag baan la mari karin
walaa weli walaa nebi toos baa ilaahay loo baryayaa ilaahayna isagaana amray waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum barya buu yidhi rabbigiin waan idinka ajiibayaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriina kuwa iskala weyn aniga inay baryaan jahannamay geli doonaan iyagoo dullaysan makhluuq la baryaa diintii nebi maxamed maaha nebigaaba la dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu alluu baryey dadkana wuxuu baray ilaahay in toos loo baryo marka fikirkii buusiri oo haddana xallaaj sii raacay oo uu ku sii raacay kii kale mushriga la oran jiray muxiidiin alandalusiy ama ibni carabi ayuu wadaa ninkaas hadda aan idinkaga digayo oo la yidhahda muuse cadde waa ahlu shirkiga dadka u fatwooday isagoo kale baa ummadana rogay ilaahay waxaan ka rajaynayaa dacwada xaqaad dhaga furan inay ku dhacdo dadka waxaan ugu yeeraynaa ilaahay toos inay u baryaan siday alla u caabudayeen nabi maxamed ka qaataan isku abuur miihin iskuna tub miihin tubtaas ka bax anagana tubtaasaan ka baxay lakum diinukum lana a'maaluna wa lakum a'maalukum waxaan leeyahay marka ugu jawaabay si khaasa ninkaas mushrigaas muuse cadde waxaan leeyahay lakum diinukum waliya diini annaga way inaan adinka idin dhahno dadka ahlu shirkiga in annagu ku dhahno way lakum diinukum waliya diin qul lii camalii walakum camalukum antum bari'uuna mima acmalu wa ana bari'un mima tacmaluun nabiga alla amraya ahlu shirkiga ku dheh camalkaygaan leeyahay adinkuna kiinaad leedihiin adinku beri baad iga tihiin kaan samaynayo anna kiinaan beri ka ah marka ahlu shirki awliyada barya oo ambiyada ku tawasula oo makhluuqa wax u gowraca oo qabuuraha ku tawaafa annagaan dhahayna lakum diinukum waliya diini muuse cadde lakum diinukum adiga iyo waxa kula diina adiga iyo maxamuudkii gobolada dhexe jooga yiri qabri waxaan soo raray kacbadii baan ka soo raray maka ka soo raray waxaan keenay dhuusamareeb yiri asaga saaxiibadiiba iyo kuwa kale qaarkood hargeysana jooga jigjiga iyo garowana jooga ama kismaayo iyo xamar nala jooga ee ilaahay in loo shariig yeelay iyo munaaqib diin ka dhigtay annaga oranayna lakum diinukum walana diinana lakum diinukum waliya diin diintiina aad leedihiin shirkigiina annaguna tawxiidkiina leena cid walba khaasatan reer Sweden ama gobolka uu joogo Gothenburg iyo Malmö ama Stockholm meesha doona ha ahaado dadkaas ninkaas lumiyay waxaan leeyahay ilaahay ka boqo toobadkeena fursad baad haysataan shirkigu idin macaaneynaya sheekh idin kaga dhigaya shirkigana ilaahay xaqiisa alla waa fogeeyay aayadana ku soo gabagabeynaya shirkiga ka hadlaysa bal dhageysta qaala subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ninka Allah u shariig yeelay sida ku dhinta ilaahay jannadiisa waa ka xarimay buu faqad harrama Allahu alayhi aljannata ومأواه النار هويغي سنا نار وي وما للظالمين من انصار ظالمين تنهل ما يان عيد غرغارتا dadka ahlu tawxiidka Sweden jooga ee qofkii muwaxid ah halka jooga ee xaq cadeyn karo dadka u cadee kuna dhaxfaafi waxa weeye waa meeshii culimadu xaq ka sheegi jireen Gothenburg oo jooga jiray Sheekh Umar Faaruq Allahu naxariiste hadda maanta in qabuuriyiin ay ku faanfaanaan waa dacwo hoosta gashay way yani fursad ay heleen way عدو والله أهل الشرك دادكينا السفي عن أي قدك أغسي قرينا نار أغسي كحينيان إن شاء الله تعالى دادك وكفو جنينا كوة مقدشة جوغينا وكفو جني كوة كالنا وكفو جنينا قارنا وانكسي فجندونا مقدشة جوغا هرقيسي جبوتي كوة جرينا سوداو كلا فرين بانو درينا ميالكستي جوغان كوة قبورها يا أولياء عابدا وحان إذن الله لكم دينكم واليدين توبوا إلى الله قبل فوات الأوان إلى أتوبت كان أنت قوري تهي haddii kale ogaada ilaahay qani inuu yahay mushrigna uusan cafinayn dadka lumin jirteen insha Allah ta'ala ilaahay rag buu soo saaraya idinka qabto idinka fujiya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam